kulan wacan wanaagsan qayrta wadana la xirta halkan oo barta YouTube kulan marbar la socotaan waxaan ku soo qaadan doonaa khilaafka dawladaha Eritrea iyo Ethiopia oo cirka galay kadib markii la sheegay Abiy Ahmed inuu safar ku kala bixiyay wadamada Yurub qorshaha oo lahaa iyo sanadda military dhaqaalaha oo soo dhameystay ayaan rabnaa in halkan ku falqeyno waxaan kala falqeyn doonaa xaaladii ugu dambeeyay dhanka Djibouti oo la sheegay inay raafkii sii kordhisay Abiy Ahmed oo la yaaban arrintaasna soo qaadan doonaa khilaafka Tigreega iyo faanada iyo nimanka la yiraahdo dawladda Ethiopia meesha baray soo gudbi doonaa Cabdiraxmaan Ciro oo safarkii Ethiopia ka baaqday lama garanayo sababta oo baaqday ayadana sababta oo baaqda faafahin doonaa waxaan kala falqeyn doonaa in reer dacwaley oo markaas mar kale sheegay in Cabdiraxmaan Ciro dagaalka la yiraahdo Mustafa Cagjar iyo Ciro inaysan ka wada hadlaynin heshiiskii dacwaley laakiin ay tahay khiyaano Oromo soo maleegtay oo ummadda Soomaaliya halkaas degan la isku diray arrintaasna falqeyn doonaa isii qaato Soomaaliya xaaladooda cirka ah magaalada Cergaabo laga soo sheegay oo aroos aad u weyn oo ku jiro waxaan kala soo qaadan doonaa khilaafka isii qaato iyo nimanka la yiraahdo Puntland meesha uu marayo waxaan soo qaadan doonaa Siciidani maamulka soo diiday in dawladda federaalka Soomaaliya shirka ay laamisay iska qayb gali doonaan ilaa Axmed oo laga aqoonsado iyo wararka ugu dambeeyay dagaalada ka socda koonfurta Soomaaliya barnaamijka uu soo saaxiibkay Furgod oo raba arrimahaas dhan wax ku weydiin Furgod barnaamijka soo dhaw marka labaad waxaan rabnaa inaan ku hormarno xaaladda dalka Eritrea iyo Ethiopia cirka jirta Abiy Ahmed waxa la sheegay muddo dhowr jeer ah inuu wadamada Faransiiska iyo Talyaaniga ku kala bixiyay safaro asagoo dhaqaale raadis ah dagaalka Eritrea inuu hub aruursi iyo dhaqaale u raadinayo maxay arrintaas keeni kartaa goniyo aad iyo aad baad mahadsan tahay kulley ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa way ka wada dharagsan yihiin xaaladda Eritrea iyo Ethiopia inay sanadkii ugu dambeeyay hub aruursi ku jireen inay qalab aruursi ku jireen in midba midka kale ma garanaysaa xurufaysi iyo qorshahooda sidii ma garanaysaa ay ayagana soo adkeyn lahaayeen dee cadowgoodana u jabin lahaayeen bay midba midka kale ku dadaalahayay xaaladaasu waad ogeydeen laakiin hadda waxyaabaha socda waxa weeye waa un amar sugalyaal weeye nin waxaa jira sargaala oo qariyey magaciisii oo warbaahinta Ethiopia la hadlay wuxuu sheegay in saraakiisha ciidamada Ethiopia lagu wargeliyay inay diyaar garoobaan isuna diyaariyaan gulf colaadeed oo ka dhana haddii bay ku samogol yahay Eritrea wuxuu sheegay in daqiiqad walba la soo wici karo oo la dhihi karo nimankaasi ku ekeeya colaada iyo gulfka colaadeed ku ekeeyna la dhihi karo ayuu sheegay oo barnaamijkaasi uu maartay qarka saaran yahay laakiin uu sheegay inay amar sugayaal yihiin laakiin wax walba waanu dhamaysanay barnaamijkana barnaamij baaqanaya maaha oo waxaa dabada ka wada dawladda maxaan ku dhahay Ethiopia waxaa dabada ka wada Faransiiska Imaaraadka ayaa dabada ka wada oo xataa dawladdan yar ee hadda Djibouti ku kacday maxaan ku dhahay ajaanibta maxaan ku dhahay bay ku samogol yahay Ethiopiaanka ah iyo guud ahaan ajaanibta xog waxaa la siiyay duulimaadku ma aha oo kaliya haddii bay ku samogol yahay Eritrea ma aha ninkan Eritrea iyo Djibouti iyo wax allaala wuxuu soo gaadhay inuu wada qabsado raba iyo baca Soomaaliya wax allaala wuxuu soo gaadhay dhulka ku saabsan inuu wada qabsado raba marka waxa loo sheegay in iyagu u taalo inay iyagu u taalo hawshaasi loo baahan yahay iyaga sidii xal ula iman lahaayeen iyaga u taala barnaamijkii uu ka hadlayay Ismaaciil Cumar Gelle ee dhawaan uu sheegay mar uu reporter wareysiga siinayay ee ku saabsanaa in isku meel looga soo wada jeedsado cadawga maxaan ku dhahay geeska Afrika oo ku sheegay Imaaraadku waa arrintaas weeye Imaaraadku waxay ka shaqeynayaan inay gacanta ku dhigaan gabi ahaanba Ethiopiaanku inay gacanta ku dhigaan dhulka Soomaaliyeed iyo Djibouti iyo Eritrea waxa idilba inay gacanta ku dhigaan bay ka shaqeynayaan Imaaraadku kulay danahooday wataan gaarka ah iyagoo maxaan ku dhahay cadow kale oo waaweyn oo maxaan ku dhahay galbeedna u adeegaya ayay qorshayaasha fulinayaan nimanka Imaaraadka ah Ethiopia de danteeda ka dhaxaragtaa marka lama garanayo de masaarida iyo Eritreaanka iyo Suudaanta iyo Djibouti muddo hadda laftigeeda inay xulufo la noqon doonto sida dhabta ay ma garanaysaa wadamada isaga difaaci doonaan marka hadda wixii la dhowraaba waa dagaal wixii ma garanaysaa la eegaaba ma la sugaaba waa dagaal laakiin dagaalkaasi waa gacan ur ku jirta lama garanayo cidda ku guuleysanaysa ma waxaa ku guuleysan doona Ethiopia ku guuleysan doonta ma Eritrea ku guuleysan doonto wadankan yarka ama wadankan maxaan ku dhahay Ethiopia waa la kala diriyo wadamo yar bay noqon doonaan nimankii Tigreegana wad ogtahay oo hadda waxa weeyaan gaar bay in dhawaalaba isu abaabulahayeen abaabulkoodina way dhameysteen
waxayna sugayaan ma garanaysaa inay xabadu qash dhahdo unbay sugayaan hadday xabadu dhacdana waxa weeyaan maalinkaasiba waxay ku ridahayaan haddii eebbaha kuu samogol yahay ciidanka Ethiopia ku ridahayaan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar mar uu wareysi bixinayo wuxuu sheegay gooniyow in nimankaasi ay khatar ku yihiin gabi ahaanba jiritaanka Ethiopia haddana ay doonayaan inay burburiyaan gabi ahaanba Ethiopia inay burburiyaan bay doonayaan waa nimanka lagu magacaabo Tigreega ama TPLF-ta saasay doonayaan buuri qorshaha kaliya ay nimankaasi u taagan yihiin waxa weeyaan buuri maadaama 30 sano ay soo xukumayeen filmwaaba ku dhacday buuri oo inay magaras xukunka ka wareegay ayay aamini la yihiin markaad siyaabo badan aad u fiiriso ama geeso far badan aad wax ka fiiriso waxay u muuqataa Ethiopia abiye wuxuu isleeyahay xoog ku hay laakiin xoog laguma hayn karo qowmiyadahan tirada badan ee iswada diidan haddii federalismkii lagu celcelinayeen laga guuro waxay u muuqanaysaa ma garanaysa in gebi ahaanba lasoo farageliyey waxyaabo fara badan oo dalka Ethiopia ay ku wada joogeen baad moodaa in lasoo farageliyey marka Ethiopia sa isu haysata haddii hadda dagaal ay gasho waxaa loo yaabaa jiritaanka gebi ahaanba Ethiopia marka waa laga yaabaa khataro waaweyn oo geeska Afrika inay kusoo socdaan dagaalkana kulay dagaaladii hore wuu ka khadhaadhaan doonaa sida aan isleeyahay marka xaaladaas oo idil baa socota waana ogaan doonaa bal meesha wax ku dhamaadaan farqada ma san tahay deegaanada SC Khartoum iyo Somaliland sanad military iyo ciidamo tiro badan la gaarsiiyay waxaana la sheegay inay dagaalami doonaan oo saacad kasta ay hubka oo banaanka yaalo saraakiisha u sareyso Somaliland ayaa lagu amray inay magaalada la saacado dhowr jeer ka weeraraan ayagoo xalay ilaa maanta ku hayay in magaaladan gudaha u gali rabnaa waa u dhownahay dhowr daqiiqo u dirnaa kadibna soo gelinay kilibyo hore oo markay la saacanood ay joogeen ciidamada Somaliland kilibyo ah inay soo geliyeen la saacanood waatana waxyaabahaas oo propaganda marna habaabin ah waxaana ila tahay in arrintaas ay tahay propaganda weyn ama arrin aan sax ahayn laakiin waxaan dhihi lahaa wax aadan sameeynin hadaa tirada waan sameeyay naftii hafar ayaan maqli jiray qofka naftiisa inuu hafro wax fiican ma aha dagaal hadoo dhaca waa la maqli lahaa haddii magaalada la saacanood la galay waa la maqli lahaa haddii colaad ay jirtay iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabo isbedela waa la fahmi lahaa laakiin inaad iska propaganda tirado Cabdiraxmaan Cirri ciidamadiisa inta soo maray in saraakiishii waa la howlgeliyay la saacanood go'doon ku jirtaa waxyaabas propaganda Muuse lagu seexin jiray Cabdiraxmaan Cirri ma Muuse bixi ayaa lagu seexin jiray waxaas hawar awal iyo waqtiga ay joogeen ay madaxda ahaayeen ayaa lagu seexin jiray Muuse waxa waaye samakaab iyo goori anaga la wareegnay iyo meeshii la guumeys ciidanka maxaa la yiraahdaa qarankan wuxuu gaaray la saacanood oo qorta ugu jira hadda dagaal ka socda Muuse bixi waxa uu say qanci jiray waxa la dhahay waa nin moogta dagaalka iyo fidnada iyo jecla marka Cabdiraxmaan Cirri uu og yahay in meeshan waxba ka jirin waxyaabo baraha bulshada la soo gelinayo iyo Facebookada laga daayay lahaa in mana jirto in meel hadda la saacanood dagaal ka socdo ama la saacanood qaab loogu dhawiyo Soomaaliya ciidankeedu ugu dhaw yihiin marnaba ma jirto marka propaganda la iska daanahay barnaamij share garay meel fog gaarsiiya